ورحمة الله وبركاته. وانا دين سلامي اصحابتي اذا دمان ميل كستو اولا جوجتان كسو دوادا channel كابايدين ومحلام channel marka maanta waxa iga cusub AJ nutrition iga cusub maanta asxaabta waxaan dhahay asxaabtaada ka faa'iideystaan asxaabtaada u sheeg marka nutrition waaye oo loogu targalay caruurta iyo waayeelada iyo dadka yaryar gabdhaha yaryar wiilasha yaryar kulli qof kasta oo bini'aadan loogu targalay waa wixii Allah la wixii jirka ka dhinaada waaye oo fitamiinada ma sha Allah jirka way qurxisaa asxaabta marka soo dhawaada AJ nutrition waxay ka kooban tahay skin care ka kooban tahay waxyaalo badan oo u jeedaa skinkii oo ka tagay way ku soo celinay gabdhaha daawooyinkii waxaas isticmaaleen sida qofka oo maqaarka jirkiisa maqaarka la fuulay intaas oo dhan daaway u tahay wayna soo celinaysaa marka asxaabay waxaan dhahay asxaabtaada ka faa'iideystaan waa saliid waxa ku jiro saliid olive oil waa antibacteria iyo antibiotic saliid olive oil wax kale waxay u roon tahay sida wadnaha difaacidda jirka cudurka marka ma sha Allah waaye ayadana tilmaamaheeda waa ka saawa akhrisan kartaa u jeedaa ku soo dhaweey zoom waxa kale ku jiro daawadan sakura extract waa wax waaye oo laga helo wadanka China waxa kale ku jiro sakura extract waa geed uux oo laga helo ama fiyor laga helo wadanka Japan oo asagana nadiifiyo dhiigga gudaha iyo maqaarka jirka kor waa turmeric waa huruud isla wada kaseene ayadana waxay tartaa waa qalajiyo waxayna la dagaalantaa baruurta ama baruurta dhiigga xirto ma sha Allah ayadana waa daawo fiican waa jenama asagana wuxuu la dagaalamaa sokorta cudurka ah midda fiican uu hagaajiyaa midda cudurkan uu la dagaalamaa soo u baabiin lahayn sida u taqaanid sakrowga ama macaanka kana saa u taqaanin Soomaalidan waxay u taqaanaa rumaan ay u taqaanaa asagana benefitka laga helo ama faa'iidooyinka laga helo waxa kamid ah si wuxuu la dagaalamaa dhiigga pressure ku la dagaalamaa oo saa u taqaanin Soomaalida u taqaano dhiig karka la dagaalamo asagana saa hore idinku soo sheegaba daawadan waxay ka kooban tahay inay la dagaalanto sokorta dhiigga macaanka inta u taqaanid insha Allah marka hadana waa kasi cholesterol hada uu ku jiraa daawadan daaway u tahay ma sha Allah marka aan ka socono hada aan fiirino kan ku xigo mix blueberry waa isku jiro canab qudaartan kala waa taqaanin waa mix blueberries marka ayadana waxay daawo ka tahay waxay ayadana daawo ka tahay dhiigga xirmo ama isku gudbinta dhiigga ama nadiifinta dhiigga halbowlayaasha isku xiro dhiigga intaas oo dhan ay nadiifisaa intaas oo dhan ay furtaa ayadana intaas ay daawo ka tahay asxaabta maanta oo dhan aan soo tusay waxay daawo u tahay marka aan isla arkayna insha Allah cudurrada daawada ka tahay waxaa kamid ah cudurka wadnaha sida wadna xanuunka isgoosyada dhiigga infectionka maqaarka kor cudurka beerka ama beer xanuunka ama beerka oo galo infection ka hortagga walwalka iyo hurdo la'aanta qofka oo walwalo ama hurdada ku yaraato ama stress ku dhaco dhibaatooyinka hindhaha waxaa kamid ah dhibaatooyinka hindhaha sida aragga fog aragga dhow oo waa dadka waayelinta ama dadka yaryar oo hindhaha xanuuna ama dadka yaryar oo aragga yar marka intaas oo dhan ay daawo u tahay ee fitamiinad badan ay ka helaan insha Allah xubna xanuunka ama jointiga ama jirka meelaha jirka iska galo intaas oo dhan waxay u tahay daawo ama ay kala furtaa insha Allah dhiig karka ama macaanka dhiig karka sida dhiig karka dhiigga oo kor u kaco ama dhiigga qiyaas la'aan hoos u dhaco intaas daawo u tahay waxay ka dhigtaa sidii qofka bini'aadamka jirkiisa loogu targalay intaas oo dhan waxay diyaarisaa dhiigyo caadi ka dhigtaa insha Allah baabasiirka ama saa u taqaanin baabasiirka oo hoos way jirtaa wayna ka hortagtaa qofkan qabin lafa xanuunka ama jir xanuun laab jeexa oo laabta oo ku xanuunto
ama laabto cunto ama gastric saa u taqaanid ama gas sida Soomaalida u taqaano insha Allah da'da qofka da'diiso dad waxaa jiro da'dooda aan da'da ka muuqato aan da'diisa ahayn dadka da'dooda iyo jirkooda aan islahayn oo ayagoo yaryar da ka muuqato ama dadka da'da ah oo wajigii oo wax yar soo ka kaduuto ama muuqaalkii wajigii oo dheexiisa tago intaas oo dhan ay soo celisaa wayna diyaarisaa wayna xifdisaa way ilaalisaa qofka isticmaalo daawadan waxay ka ilaalisaa da'daas muuqaalkiisa iyo maqaarkiisa intaas way ifisaa quruxdiisa horena way soo celisaa quruxna way u ziyaadisaa insha Allah سكروة معانك سكروة دا أتقان هدا معان أتقان بمعانك نوي حفظيساك كورنا قادد أهوسنا دكتو ما شاء الله ويهجاجسا برالايسكا قفك برالايسكا أما قفك حمناها والقبك نقضة انت اسم داويك تهي إن شاء الله داوع لفها دبر حنونك داود وحي هجاجسا دبر كاس أو يريسو oo infectionka iyo waxaas ay ka ilaaliso dhabar xanuunkuna way u runtaa insha Allah maqaarka oo daciifa qofka bini'aadamka maqaarkiisa daciifo way soo celisaa qofkii maqaarkiisa qofkii daawo isticmaalo oo maqaarka ka halaabay maqaarkiisa hore haduu isticmaalo kiisa hore ama dhalaalo ka qaada insha Allah noocyada kansarka sida kansarka dhiigga ama kansarka nabarka intaas badaaway u tahay wayna hagaajisaa wayna kala dagaalantaa jirka inuu qaado kansar ilowshaha sida qofka oo hilmaanka badan ama ilowshaha badan intaasna way ka ilaalisaa maadaama qofka bini'aadamka ay soo celiso wax alla wixii jirkiisa ka maqnaa ay soo celiso oo u hagaajiso oo hormooniskiisa iyo jirkiisa dhan ay hagaajiso marka ilowshaha qofka ma ku yaraanayo haduu isticmaalo waa ilowshaha way ilaalisaa insha Allah sida dhalmiyarida dhalma la'aanta iyo wixii la mid ah sida dhalmada oo yaraato ama qofka oo badhalinba taas waxay u dhigantaa inay u soo celiso qofka hormoonskiisna way saxdaa oo vitaminaadka jirkiisa ka dhinaa way soo celisaa insha Allah waxayna ka saacidaa in si dhaqsi ah uu u qaado qofkii uu u baahan ama dhalmayarida dhigto insha Allah ilaahi ayaa cudurka hanaga qaado ilaahi ubadka bixiyo laakiin way ku saacidaysaa insha Allah marka hadda daawada waxay idin tusaa daawada qaabka loo isticmaalo boxkan ay ku jirtaa waxay ku kooban tahay 12 xabay ka kooban ka daawada ay idin tusaa si loo isticmaalayo boxkan ay ku jirtaa qaabkan ay u eg tahay waa kasa waa AG nutrition qudaarta ay ka kooban tahay na korna ugu qoran tahay ma argaan haday inta biis ay ka kooban tahay waa 14 xabay ka kooban tahay oo marka waa idin tusaa waa furayna qaabka isticmaalayna ani hal xabo waa dhameystay hadan labadan ana iskale waa isticmaalaa insha Allah marka wax badan waa iskaga dareemay insha Allah marka waa idin tusaa qaabka loo isticmaalayo insha Allah qaabkaana u taala daawada qaabkaana u taala saana waa loo furaa marka inta biisa ku jirto waa 14 pieces waa 14 pieces waaye halka biis intaanu la eg yahay marka waa furaysaa marka furtid marka horta qaabka loo isticmaalayo caruurta hada qofka caruur yahay maalinkii hal xabo uu ka isticmaali karaa qofka intaanu biiska intaan waaye qaabka loo isticmaalayo marka caruurta hal xabo uu ku filan yahay qofka oo qaangaarka ama qofka weyn wuxuu ka isticmaali karaa labo biis ka isticmaali karaa maalinkii habeenkii iyo subaxii ka isticmaali karaa marka qofka oo da'da qof kasta oo qof xanuunsan laba xabo ka isticmaali karaa qofka iska caadiyana uu isticmaali karaa oo si asaga wixii jirkiisa ka maqan oo u helo ama cuntadan fara badan oo la cunayo oo saliida burka bariista baastada intaas oo dhan waxay nagu reebaan effect nagu reebaan intaas oo dhan ay ka soo saare intaas oo dhan ay ka dilay suntooda marka jirkay ku micneynaa insha Allah uurka lana wuxuu u yeelaa asagana awoodu siinaa awoodu ka helaa marka uu fiicanta asagana aragiisa uu dhilaalaa insha Allah qofka nuujinayo naas nuujinta
caana badan oo ka helaa insha Allah caana qofka uurka leh maalinkii hal mar uu ka isticmaali karaa qofka nuujinayaba cunugana uu u fiican yahay caana badan uu ka helaa fitamiinka hesho cunugaagana uu helaa insha Allah intaas uu yahay marka qaabka loo isticmaalayo meel laga furaayo leedahay qaabkan waa ka soo ku bilaaban tahay waa furaysaa aniga saaka waa isticmaalay hadda mar raba inaan isticmaalo qaybtan saana u furaysaa marka furtid kor afka ku shubaysaa carabka hoostiisa ku shubaysaa carabka hoostiisa marka ku shubtid ilaa 5 daqiiqo ku haynaysaa kadib biyo yara la cabaysaa biyo yara usoo qaadanaysaa waa la cabaysaa 5 daqiiqo marka ku haysid waa marka biyaha ayada dhilaasho afkay raacdaa 5 daqiiqo ku haysaba ayada jaa afkay gale way dhilaalee marka biyahana waa raacsiinle afka la iska raacsiine laakiin ayada dhilaaleyso 5 daqiiqo aad ku haysid carabka hoostiisi marka asxaabta waa isla fahnaa umaleynaa sidii loo isticmaalo marka waxaan ka hadlaynaa benefitka qofka daawada gato daawada biis waa u gadan kartaa hal biis waa ka gadan kartaa box waa ka gadan kartaa 14 xabo boqosyaal badan waa ka gadan kartaa inta alla inta rabtid marka benefitka idinka sheekeyna insha Allah daawada marka gadatid waxa ka helaysaa daawadan in faa'iidooyinkeedu waa idin sheegay teeda kale waxa ka sameyn kartaa lacag ka sameyn kartaa waana ka faa'iidi kartaa insha Allah adoo gurigaaga joogo adoo shaqadaada joogo waana ka faa'iidi kartaa company-gan AJ Nutrition ma ahan company asaga kaligiisa ka faa'iido waa company adi faa'iido ku haayo marka hada doonaysid waaye haddii aad rabtid inaad daawoodo waa gadan kartaa biis waa gadan kartaa box oo 14 xabo ku jirto ama boxyaalo waa gadan kartaa hada caafimaad u isticmaalaysid ka faa'iidooyinka kale asaga leeyahay company-gan waxa kamid ah si aad ugu faa'iido ama ganacsi aad ka sameeyso waxa sameyn kartaa waxa la xiriiray waxa nambara in soo qori doona nambaradaas kala soo xiriiraysiin marka saa daawada daarabtid aad u gadanayso oo isticmaal rabtid saa daawada hadana mar labaad u sii iibinayso oo dadka kastankaaga ama kastan aad u sameeysato oo aad ka iibiso ama company-ga member ka noqoto intaba company-ga diyaar u leeyahay waa company asaga faa'iido asaga kaligiisa faa'iido ma ahan company asaga dadka ka faa'iidaan waaye waxa looga targalay bulshada marka daawo waaye daawadan ma sha Allah intii ka saysaa taqaano waa daawo oo qofka bini'aadinka muhiim u ah oo looga maarmo sida isbitaalada oo maalin kasta lacagta badan laga bixiyo marka dadkii isbitaalada ay ku rafaadeen xal waa loo heli waayay cudurrada qaar marka insha Allah saan filaayo qofkii isticmaalo waxyaalo badan hada ganacsi u baahan tahay ganacsi ka sameey hada ganacsi u baahan tahay ganacsi ka sameey company-ga nambara idin soo qori doona la xiriira marka nambaradeeda ayaa idin soo qori doonaa ilaa nambar camal idin soo qori doonaa oo ay igala soo xiriiri doontiin haddii aad faahfaahin kale u baahatid saa ugu ganacsi ugu sameyn lahayd ama saa ugu faa'iidi lahayd oo qof walaalka ama adi ama hooyada ama aabaha dadka waayelinta oo iska tabardaran oo isbitaalada wareegayo waxa u dhaanto in daawooyinka wixii jirkooda ka maqan inay isku daaweeyaan oo jirkii oo laciifo oo marka insha Allah marka nambaradaas igala soo xiriiri doontiin faahfaahimada kale marka insha Allah waxa waaye qofkii rabana oo inuu ka noqdo member ama ka